الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا النبي وينقور رمي عليه الصلاة والسلام وينبري الصبح كستوى وبريضتك وينك الله يو وقف كستابه وحرحرنا يمالو كعتميو كعتمها يصعب الكاقفك وقلا يصبحي والنبي تلمامي صلى الله عليه وسلم فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها qof kastaaba naftiisa uu iibgeynaya dadka qaarna waxay u iibgeynayaan guul iyo xoreyn ay naar ka xoreeyaan dadka qaarna waxay u iibgeynayaan halaag adduunyo iyo aakhiraba ay ragaadaan ay baabaan min huna waxaan leenahay qofka bani aadamka ahi imma an yataqaddama wa imma an yataakhar ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu leeyahay liman shaa minkum an yataqaddama aw yataakhar qofka bani aadamka ahi inuu horumaro iyo inuu guulaysto inuu guul dareysto ka dhaxeeya wax saddexaad ma jiraan basharka qof la soo reebi karaa ma jiro la oranayo qofkani manuu guulaysan manuu guul dareysan ma fi liman shaa minkum an yataqaddama aw yataakhar waxaynu doonaynaa inaynu baranno xalqadana inuu markaas ka dhaadhicino at-taghyiir dhaat qofku naftiisa inuu bedelo xaalku ku sugnaa maaha xaal kale inuu galo maxaa loo jeedaa taghyiirku muxuu yahay maxaa la bedelayaa sidee wax loo bedelayaa inaha insha Allah taala ayaa baynu isla eegi doonaa waxaa la doonayaa qofku haddii uu ku sugan yahay xaalad xun inuu isu bedelo wanaag hadduu wanaagsan yahayna inuu wanaag isaga sii bedelo lianno adduunyada ma jiro wax aan isbedelin ma jiro samadu waxay bedeshaa daruuraheeda dhulkuna wuxuu bedelaa oogadiisa iyo dahaarkiisa sare ibnu aadamku wuxuu bedelaa jildigiisa iyo haraggiisa daqiiqadihii iyo waqtigii yaraa kooban ee soo maraba jirkaagu isbedel iyo wuxuu sameeyaa markaa inuu markaa dib isu bedelo isu cusboonaysiiyo qofka ibn aadamka ah waxyaabo fara badan baa la soo dariya isagoo toosan oo quman oo cibaado wanaagsan ayaaba usbuuciyada qaar ka dhacaa waan isbedelo hagaajiyo mararka qaar baa afkaar ku ururtay waxay keentaa inuu wado khalad qaado waa inuu isbedelo sida saxda ah oo markaa waxa weeye qabsado fakum min al-ihsan fi mazidi wa fi safa'i al-qalbi dhat tajdidi samafalkana waxaad noqotaa qof kororsado oo ihsaanka iyo wanaagga kor u qaada saafinimada qalbigana qof markastaba cusboonaysiin kaga sugan noqo haddii aad markaa naftii kor u qaadi weydo isbedeli weydo wax hagaajin weydo halkaagaas unba taagnaanaysa adduunyada iyo aakhiradii toonana qof markaa ku meel ku gaadha ama ku horumara noqon maysid nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina baray wixii xun in la bedelo wuxuu nabigu bedelay sala allahu calayhi wasalam magacyo dad gabadh jahdama la oran jiray Layla buu ugu bedelay magaceedaas hore Harb mid la oran jiray oo magaciisaasi daanu roonayn Muslim buu ugu bedelay Aasi mid la oran jiray nabigu Mutii' buu ugu bedelay calayhi salaatu wasalaam meelaha qaar kood buu magacyada xataa ka bedelay Afra Khadra buu nabigu ku bedelay sallallahu alayhi wasallam Yathrib nabigu Taabah buu ku bedelay magacii magaalada Madiina Taab buu ku bedelay Yathrib magacyadaas iyo waxyaabaha foosha xun nabigu wuxuu ina barayaa sallallahu alayhi wasallam wixii qaldan inaan la oran waan ku soo sugnaan jiray iyo waan haysan jiray la yiraahdo markaa waa shay qaldan oo laga noqdo la saxo ama sidana ka fiican oo sida si fiican la qaato walow ka hore uu qalad ba noqonine nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay Aisha ka waranaysaa haduu nabigu shay ka dhaarto dabadeed uu arka dhaarta wax ka fiican inuu jiro oo in lagu dhaarchaba ay ka fiican tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam dhaarta ma haysan jirin oo burin jiray una ka kafaara gudan jiray sallallahu alayhi wasallam oo kafaarada ayuu bixin jiray sida Aisha ay tilmaamayso in marka dhaartii hore la iskaga sugnaado sidii hore lagu wada wanaagsan too shariicada lagu waafaqi laakiin waxa ka sii fiican inaad sida qaladka ka noqoto sida saxda u noqoto tusaale ahaan qof baa wuxuu ka dhaartay wallahi inaan hebel la hadlay walaalkii oo muslima dhaartan inuu ku sugnaado waxfadu aymaanakum dhaartiisa inuu iska ilaashado weey laakiin meeshii waxa yaala walaalkii uu ka go'ayo hajri baa ka laasimaya iyo kala go' iyo walaalkii uu ka fogaado shariicadu waxay faraysaa ama xadiidka nabiga aan ka baranayna calayhi salaatu wasalaam inuu xaaladda iska bedelo oo isu bedelo xaaladda wanaaga badan leh oo ah inuu dhaartiisana ka kafaara guto walaalkiisana uu la hadlo oo aanu sida dadka qaarkood oranin maya waaban dhaartay waan hagaajin lahaa maxaan yeelaa inaanu sidaa markaa oranin waxaa inta faraha badan leh dadku isku qaldaan farqi wuxuu u dhaxeeyaa qofku inuu noqdo mid iska bedela dariiqii saxda ah ee ku sugnaa oo markaa waxa weeye uu isu bedelo dariiqyo kale oo sidii saxda ahayd ee qumaneed buu iska bedelo siyaabo kale oo qaldan buu dhax qaaday
taasoo kale de waa madmuum sharcan wax dhaleecaysan weeyaan isbedbedelka ama tanaqulka ama awjuhda iyo waxyaabaha shariicadu diidaysaana taas weeye laakiin qofku qalad uu ku jiro inuu iska bedelo oo sida saxda uu isu bedelo intaasoo aayadood baa loo helaya iyo intaasoo xadiis bal kitaabka qur-aanka ah waxba la odhan karaa waa kitaabun min taghyiiri alaswa aw min taghyiiri asuu ila alxasan dadka xumaanta laga saaro kitaabka gebigiisa iyo risaalada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkoo dariiqa xun ay ku socdaan laga leexiyo dariiqa saxda loo leexiyo weeyaan dadkoo mabaadi'dii hore ay aaminsanaan jireen diinta khilaafsan iyo shariicada samxada ah iyo rabbi tabaaraka wa tacaala xuquuqdiisa oo la dhowro khilaafsan in laga tago weeyaan waxaa markaa aayaadka qur-aanku in badan ay noo tilmaamayaan in dadka qaarkood ay markaa taqyiirka diidi jireen oo marka lagu war nebiga raaca ay odhan jireen ma waxaanu ka tagnaa wixii aabbayaasha noola yimaadeen bani aadamka dabeecad waxay iskaga beeran xataa saalixiintu ma jeclaystaan la idhaa ereyga isbedel laakiin waxay ka jecel la waynu hagaajinaynaa waxay ka odhan waynu hagaajinaynaa dheh laakiin hagaajinta lafteedu waa isbedel wixii xumaayad ka tagtay ood wanaag u kacday weeyaan waalid baa wuxuu aabihii baray in odayabaa wuxuu inankiisa ku yidhi cashar buu doonay inuu ka dhaadhiciyo wuxuu soo qaaday khariidada bahashan la yidhaahdo maabka deeta uu jeexjeexay markaasaa wuxuu kuhi inankayga iyo maabka isku hagaaji maabka la iskuma hagaajin kare yarkii maanta o dhan isu beegbeego wada bad iyo dee africa iyo asia iyo isku toosin kari waayo xagga dambe wuxuu kaga nabay markaa sawirkiisiibuu kaga nabay yarka sawirkiisuu kaga nabay markaasuu jeexjeexay sawiradii go-go-naayu keen isku hagaajin kari waayay dhanka kale ugu rogay oo wuxuu tusay dhabarkoodii si ku imika ma garanaysa yarku dee sawirkiisa si fiican buu u garanaya is yaqaanaa sankiisiibuu garhkiisa la eegtay dhegtiisiina dhegta kale la eegtay sawirkiisiibuu hagaajiyey markuu sawirkiisii hagaajiyo yihi aabba waan toosiibo odaygu dhinaca kale u rogay saa wuxuu tusay in caalamka khariidadiisiina ay si fiican u fadhiisatay min hunaa odaygii wuxuu ku yihi inankaygiyo waxaad ogaataa adigu haddaad hagaagto adduunyadoo dhan baa hagaagaysa wanaagaaga wanaagga caalamka ku jira wanaag xumahaagana xumaha caalamka ku jira wax fudud ma aha in qof muslim ah inuu hagaago oo uu iska bedelo dariiqadiisii xumayd oo isu bedelo dariiqada saxda ah adduunyadoo dhan baa la hagaagaysa dhab weeye axaadiista nabigaana tusaysa calayhi salaatu wasalaam waxaa diintu ina baraysaa ama nabigu ina baray calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu tukanayo dee inuu u duceeyo muslimiintu assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin hada qofku hagaago salaada tukado qumanaado muslimiintii faa'iido u wadaa ah inuu duceeyo oo ilaahay dambi dhaaf u weydiiyo haddaanu hagaagine uu maqan yahayna dee ducadiisa waa la tabayaa waa wax meeshii ka maqan weeyaan wax meeshii ka maqan waxaa markaa waxa weeyaan waa odhan karaa ama lagala soo bixi karaa taqyiirka iyo isbedelka adduunyada qof kasta oo fiican oo kusoo biira waa tiro goonunba adduunyada ku nool ilaahay duldhigay tiradaa qofku inuu hagaagsanaado inuu xumaado dee mar kastaba waxa u wanaagsan inuu markaa wanaagsanaado ayaa bani aadamka u wanaagsano arlada u wanaagsano nafta qofka u wanaagsano adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba markaa u toosan waxaa markaa xaqiiqadu walaalayaal ay tahay qofku markuu doonayo inuu naftiisa bedelo ama inuu isbedelo isbedelka dhabta ah ee laga sheekeynaya ma aha inaynu markaa ku mashquulno wax aan inta badan inagayna anfacayn ama qofku uu ku mashquulo sideebuu caalamka wax uga bedelaa isagoon isagu waxba iska bedelin sideebuu adduunyada wax ugu soo kordhiyaa isagoon isagu hagaagin tagayurka iyo isbedelka dhabta ah ee la sheegaya waxa weeyaan cibaado aada ku xumayd ma hagaajisay waa sidaa wey salaadii iyo jamaacadeeda seegseegaysay ma toosisay haddii aada been sheegi jirtay beenta ma iska daysay caadooyinka qaar khariban haddaad lahaydood maalan lagugu imtixaamay telefoonka qaraamiga ee laga haasaabay laga hadlay ma iska daysay ma toosisay ma saxday cibaadada foosha xun leed leeda haddii dadka aada markaa ahayd aan qalbiga wanaagsanayn oo xiqdiga iyo xaasidnimada iyo qurunku qalbigooda buuxiyey dib ma isugu noqoto ma ishagaajisay suluukiyaadkaaga ma ka daba tagtay akhlaaqiyaadkaaga ereyadaada ma huftay kullu haadihi waxay xadidayaan taqyiirka aynu sheegayno qofku markastoo kuwa wax ka bedelana waxbaa hagaagaya hareerihiisa ku sugan markastoo naftiisu aanay hagaagin si kastoo u xaawila adduunyada inuu wax ka bedelo waxba ka bedeli kari maayo waxay yidhaahdaan yacni haddii qofku uu bedelo ama uu ku fikiro inuu naftiisa islaaxiyo fahuwa calaa ariiqi saalixiin ariiqii saalixiintu ku sugaya hadduu naftiisa un wax ka bedelo naftiisa hagaajiyo waayo saalixiintaa sidaas oo lafahooda hagaajiya oo aakhiradooda u tula haddii uu isaga iyo inta hareerihiisaaba wax ka bedelana
وطريق الصادقين بتكررت الشيء طريق ودي ويان وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين هديو دونا قف كونوا نفتي سوى كبدلوا انت كحير سنة كبدلوا أدون كورنا وحكبدلنا وحكو الصعداء ودبا صعداء طريق النبي يا صالحين ودبا صعداء أي مضي يا صالحين تي يا مصلحين تي إلهي أدوية ذا كيانينا طريق قاسي كدبا سعودين ونبي عليه الصلاة والسلام طريق يسكو السعودين أدوية ذا وحكبدلنا انت نفتو دي هقاتشيين وانت كحير سنة هقاتشيين يا أدوية دي ورنا وحكبدلين سيدا مركا أي مضي أدوية ذا صامرتي شافعي يا مالك يا أحمد يا غير كد أبو حنيفة هي مركا أي مضي إسلام كلا خير كبدنا يا أدوية ذا صامري وحمركا وحوية ولا ريال إنه هرتاجن مركا لنا قال هذا قضية التغيير تغيير الذات ويحيى إنه خربنا هي إنه بدله أما بلينا ويدي سؤال لأن لا سلوك يدغن كور وعادي حافظ هذه غير كور وعادي وحبرش هذا كور هو عادي وحول بوحين كجوابنا كلمة عادي 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 وحد مودائن مركا قفكو لا دلay isagoo caadi inuu caadi yahay inuu waxbarashadiisa iyo aqoontiisa ay ku dhisan tahay caadi in marka waxa weeyaan ay ku dhisan tahay noloshiisa oo caadi caadi dadka caadi ibn caadi iska noqonaya qof qadarkiisana caadi un baa loogu qorayaa marka nolosha inaan ka dhacno oo dad fara badan waxay u noolyiin bay garan waayaan oo halkay marayaan bay garan waayaan waxa uu sababa noloshii wuxuu ku eegaya muraayad iyo diirad la yiraahdo caadi wax walba iska caadi caadi ma jiro شيء هو شر يا خير وتقدم يتأخر أخي وهرمر يا دبو دعوي يقول دره لبدا سنة دوني قفكو إنه مواكبة سمعوا ضبطا كو قبنا يوقف صدا وهلكو راعي راعه وجروب كو كم النقطة وكم النقطة دواؤك منك وما تشعر وداؤك فيك وما تبصر وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر شاعرك سيوحيلي xanuun baa kugu sugan oo ma dareemaysid dawadeedan aadun baa isku hayo hadana isma arkaysid dawaduna aadun bay kugu sugantahay waxaad sheeganaysaa adduunyada shakhsiga oo iska dhex joogo oo waxba aan ka ahayn inaad tahay baad sheeganaysaa guud adduunyada dhan ay kugu xeersanaada bay ku adeegaysaa oo caalamka oo dhan adigu kugu duuban yahay guud hawlaalayaal muhiima tagyiirka iyo isbedelka inaan nafaheena kala quusan walaalaheena kala quusan nafteena kala quusan waxaan jeclahay inaan soo qadimo nin walaalkii tagyiir ku sameeyay walaalkii oo ka yar oo faasid oo khamri cab oo khariban oo dhibaato badan kala kulantay ayaa habeenada kamid ah la soo hadlo lagu ninkii hebel ahaa wadadu gaari kala baxayo shil fudud buu galay madaxii dhiig baa jira oo sakhraansan yahay ninkii gaari uu soo kaxaysta walaalkii oo gaarigii yaalo oo dhiig oo khamrigii dhiigii isku qalsmeen meeshii ka qaado marka ninkan sare walaalkiisan ka weyna in dhaqaalihiisa iyo ganacsigiisu roon yahay buu ahaa magaalada gabigeediiba ninkii intuu ka kaxeeyay wadan kala geeyay meel kale deeta dhakhtar buu seexiyay dhakhtar buu la heshiiyay ninkuu iska caafimaad qabaa laakiin wuxuu ku yiri nin jabay ka dhigta jabay gacantii baa la kabay lugtii baa la kabay siyaabo kale loo nidaamiyay ninkii iska caadiya markii soo toosay oo suuxdintii ka soo noqday isagoo alaaba ku wada xirxiran yihiin deeta waxa lagu dhaxas dhaqaajin waa jaban tahay ninkuna waa caadi weey dawooyinna waa la siiyay طبعا ده قفان شاب انتو فدين كره ما فدين كره لكن فضود ها la weeriyo siyaabo fudud baa wax looga dhaadhiciyay dawooyin iyo irbado iyana waa la siiyaa ninkii maalinta ka dambaysa uu soo yaroonaada ilaa asxaabtiisii iyo dadkii iyo balwadii iyo barnaamijtii ma arkaya ninkii ka weynaa wuxuu ku xiray dad wanaagsan dad nadiifa dad cibaadadooda ilaashada dad adduunyo aakhiraba taqadumkooda ka shaqeeya maalin kasta qoladaas galabtii u timid oo la shaahda adduunyada iyo waaqica ay uga warranta deetan ninkii fikir buu qaaday hami buu qaaday uu toosay wuxuu tamaniyay uu jeclaystay inuu mar kaliya uu saani u kacbarso nimankan oo kale wala mid noqdo walaalkii buu la tashaday walaal man horumaran doonayaan cayn ka noqdo walaalkiiba saaciday waxbarashadii iyo ninkii uu soo baxo wax buu bartay oo meel soo qabsaday oo shaqo fiican buu helay muddo kadib ay bartiisii ku celiyay marka ninkii oo gaarigiisii wata wuxuu soo maray bartii yareedu ku sakhraami jiray groupkii uu dhex carari jiray wixii uu soo dhex maray markaas wuxuu aad ula yaabay nolosha mugdiga ah ay ku sugan yihiin markaas walaalkii uu mahadnaqay leema waa la iskaranayaa miirkiisa jooge walaalkii buu dareemay wanaaga iyo fiicnida uu sameeyay markaas uu uga mahadnaqay oo markaa ugu duceeyay waxaynu arki karaynaa walaalayaal qofku inuu tagyiir sameeyo inuu wax bedelo inaanu ku dhaga adeegin sidiisii hore aan waligeed baa la soo ahaan jiray waligeed baa lagu sugnaan jiray
waxayna tusinaysaa taqadum iyo horumar adduunya aakhiraba waxaynu doonaynaa markaaynu doonayno inaynu wax bedelo oo aynu nafteena bedelo oo aynu waaqiceena bedelo inaynu qodobo dhowra ilaashano qodobka koowaad wuxuu noqonayaa kow qofku waa inuu daakhilka iska bedelo min adaakhil oo inuu khaarijka iska bedelo waxaa laga yaabaa in qofku isagoon isbedelin oon daakhilkiisa wax isbedeli ku jirin inuu daahirka iyo dusha damco inuu wax ka bedelo waxna kama jiraan ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay qofna ma bedelo qoomna ma bedelo cidna ma bedelo ilaa ay iyagu lafahooda bedelayaan oo iyagu ay dib isugu noqonayaan adigu horta marka hore isbedel qanaacaadkaaga wax ka bedel fikirkaaga wax ka bedel qodobka labaad xadid biwuduuxin maa turiidu markaad doonaysa inaad isbedesho maxaad rabtaa haddaad ku sheekaysatood ka fikirto uun waan isbedelaya waan hagaagaya waxba ku hagaagi maayaan waa inaad dhab u xadidaa aya shayin turiidu maxaad rabtaa in waxbarashada kor u qaado cibaadadayda inaan hagaajiyo salaadihii baanan ku fiicnin oo jamaacadii baanan xaadirinin inaad xadidaa waxaad rabto taxwiilu salbiyaat ilaa iijaabiyaat kolley qof kastaba waxaa ku kulma waxyaabo wanaagsan iyo waxyaabo xunxun awoodaha xunxun eed leedahay sideed u xoojin kartaa sideed meel wanaagsan u gelin kartaa albaxthu can albadaa'il inaad baadho ood isku daydo inaad baadhitaan ku samayso waxyaabahan aad hadda ku jirto ku kharibaya maxaa kuu bedeli kara tusaaleaan shaqada aad ka shaqaysaa khariban shaqo fiican sideed u heli kartaa xageed shaqo fiican ka raadisaa dadka aad ku xidhan tahay baa khariban dad wan wanaagsan oo dad sana xageed ka raadsataa saasoo kale inaad badaa'il u raadiso التخطيط inaad qorshayso sidaad isu bedeli lahayd ood qorshayso halkaa dib ha u xaadirin halkaana xaadir waxaa dib ha u qaadin waxaana qaad takhdiid rasmi waa in laga helo الصبر waa inaad u adkaysato wax maalin kaliya isbedelaa ma jiro oo mar kaliya taan casaan madow buluug akhtar iska noqday sabir buu u baahan yahay inaad u sabirto inaad ka fogaato qodobka toddobaad ibtacid caman fashalu fi lxayaa aw fi tagyiir waxaad ka fogaataa weligaa dadka fashilmay ee noloshana ku fashilmay isbedelkana ku fashilmay maanta oo dhan bay ku odhan doonaan weligay baa annagaa soo arki jirnay maantaad isku dayaysaa inaad waar annagaa kusoo daalay waxa markaasay ku niyad jabinayaan ha u dhawaanin kuwa laa markaa wax dhibaataa malaa qodobka sideedaad laa ba'sa bi an taqra'a taariikha namaadij miman qablak dadkii kaa horreeyay tusaalaha ahaa saalixiintii muslixiintii caabidiintii inaad taariikhdooda wax ka akhrido ba'si male bal aad bay ku anfacaysaa tagyiirkaaga iyo isbedelkaagana wax badan bay ka qayb qaadanaysa iska ilaali inaad ku fashilanto isbedelkaaga oo naftaada waxa aad ka goysay aad dib ugu noqoto qaraarkaaga iyo go-aankaaga inaad xajisato isku day haddii aad fashilanto lacalla go-aan baad qaadatay waxbarasho ood ka yar dhacday go-aan cibaadaad qaadatay waad ka dhacday haddaad fashilanta dhib ma laha dib unu soo noqo muhiimaddu maaha inaynu dariiqa uun ku sugnaanee dariiqa haddaan ka dhacno wayna dib usoo fulo haddana qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illahi in allaha yakfiru dunuuba jamiica 100 jeer haddaad fashilanto markii 101 baa kuu furan 101 haddaad fashilantana markii 102 baa kuu furan falaa ya'sa min raxmat illaahi tabaaraka wa tacaala ha quusanin soo taagnow sumuud naftaada inaad kor u qaado xumahana ka bedasho wixii kharibanay dhex joogtana aad ka anba bixiso ballankeenu waa sidaa ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna waafajiya khayrkii wanaaga subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk 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 astaqfiruka